Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Aman Channel. Maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo 10 waddan ee ugu hodansan qaaradda Afrika. Inta aanan u guda gelin ciwaankeena daawada waxaan kaa codsanaynaa haddii aadan ku soo biirin channelka inaad ku soo biirto, haddii aad fiidiyoga ka heshay inaad like saarto, haddii aad fikrad qabtan inaad noogu soo gudbiso commentiga. Nambarka 10aad Ghana. Ghana waa waddan ku yaalo dhulxeebeedka gacanka Geni ee galbeedka Afrika. Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool in ka badan 30 milyan oo shaqsi. Ghana waxay caan ku tahay dhoofinta cocoa iyo gold. Xaddiga magaaleynta waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa 55%, halka ganacsiga waddankaasi lagu qiyaaso 1.19 bilyan oo US dollar. Sidoo kale waddanka wuxuu leeyahay warshado, taasina waxay ka dhigtay inuu ka mid noqdo mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. GDP-ga waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 51.815 bilyan oo dollar. Nambarka 9aad Tanzania. Tanzania waa waddan ku yaalo bariga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 57.31 milyan. Waddankaasi wuxuu caan ku yahay dhoofinta dahabka, diamond-ka, koofiga iyo badeecooyin kale badan. Tanzania waa mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna leeyahay GDP gaaraya 55.645 bilyan. Lambarka 8aad Ethiopia. Ethiopia sidoo kale waa waddan ku yaalo bariga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 112 milyan. Inta badan dhaqaalaha Ethiopia waxa uu ku tiirsan yahay beeraha iyo koofiga. Sidoo kale Ethiopia waa mid ka mid ah wadamada ugu qanisan qaaradda Afrika oo leh GDP gaaraya 83.836 bilyan oo dollar. Nambarka 7aad Kenya. Kenya sidoo kale waa waddan ku yaalo bariga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 49.71 milyan. Xaddiga magaaleynta dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26.56. Markii 3 loo dhigo dhaqaalaha Kenya, qayb ka mid ah waxaa soo saara beeraha dalkaasi. Sidoo kale Kenya waa mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa ayna leedahay GDP gaaraya 89.591 bilyan oo dollar. Nambarka 6aad Angola. Angola waa waddan ku yaalo koonfurta Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 29.78 milyan. Sidoo kale Angola waa waddan caan ku ah saliidda, diamond-ka iyo macdanta. Taasina waxay horseeday inuu ka mid noqdo wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna gaarayaa GDP-ga dalkaasi 114.504 bilyan oo dollar. Nambarka 5aad Morocco. Morocco waa waddan ku yaalo waqooyiga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 35.74 milyan. Morocco waa waddan caan ku ah warshadaha. Sidoo kale Morocco waa mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna leeyahay GDP gaaraya 118.178 bilyan oo dollar. Nambarka 4aad Algeria. Algeria waa waddan ku yaalo waqooyiga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 41.32 milyan. Sidoo kale Algeria waa waddanka labaad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Badka dalkaasi wuxuu gaarayaa 2383 milyan kiiloomitir iskuweer. Sidoo kale Algeria waa waddan caan ku ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Taasina waxa ay ka dhigtay inuu ka mid noqdo wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna gaarayaa GDP-ga dalkaasi 188.342 bilyan oo dollar. Nambarka 3aad Egypt. Egypt waa waddan ku yaalo waqooyiga Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 97.55 milyan. Sidoo kale Egypt waa waddan caan ku ah dalxiiska iyo dhoofinta shidaalka. Taasina waxay ka dhigtay inuu ka mid noqdo wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa ayna leedahay GDP gaaraya 249.471 bilyan. Nambarka 2aad South Africa. South Africa waa waddan ku yaalo koonfurta Afrika. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 56.72 milyan. South Africa waa waddan caan ku ah dhoofinta iron, steel iyo metal.
taasina waxay ka dhigtay inuu ka mid noqdo waddamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna leeyahay GDP gaaraya $376.679 bilyan. Nambarka 1. Nigeria. Nigeria waa waddan ku yaalo galbeedka Afrika. Waxa uuna xuduud la wadaagaa dalalka Niger, Chad, Cameroon iyo Benin. Sidoo kale Nigeria waa waddan caan ku ah beeraha saliidda iyo macdanta. Taasina waxay u horseeday inuu noqdo waddanka ugu hodansan qaaradda Afrika. Waxa uuna leeyahay GDP gaaraya $397.472 bilyan.